aragtaan waa jaaliyadii St. Cloud maamulkoodii xubno ka mid ah oo caawa ku hadlaya magaca jaaliyada inaan hadal meesha ka jeedino uma aan talagelin laakiin waxaan rabnaa hawl annagu aanu garanay inay muhiim tahay oo horumarka macnaha jaaliyada St. Cloud ay sameynayso ay ka mid tahay oo aan soo sameynay maalintii hore inaan wasiirka casuuno qadaw sameeyno maantana waxaan qada sharaf sameynay nimca dareen oo nala joogtay oo qada fiican aan soo sameynay haddana waxaan doonaynaa meeshan inaan hawl muhiim ah ka qabno waxaan codsanaynaa wasiirku inuu noo yimaado halka nala soo istaago si aan waajibkan gudanayno noogala qayb qaato waxa kale oo jeclaan lahayn stage-keena nala imaado abwaanka caanka Carlos caawa waxaanu jeclaan lahayn inaanu guddoonsiino abaalmarin aad iyo aad u qiimo badan oo ay guddoonsiinayaan jaaliyadda St. Cloud gabadh ka mid ah gabdhaha jaaliyadda Soomaalida Ethiopia oo waqtigeedii mid dibad iyo mid gudo dhib iyo rafaad badan u martay jeclaysatay inay macnaha tusto wanaaga iyo kartideeda ay kalgacaylka u qabto ummadda ay ka dhalatay had iyo habeenna u taagneyd nabadda inay horumariso inaanu caawa guddoonsiino koobka nabadda ee 2012 waxaan jeclaan lahayn inay gabadhaasi nala soo istaagto stage-ka waxaa nimca dareen waxaan kulan ku soo diyaarinay tix yar oo gaaban oo gabaya oo ku saabsan abaalmarinta howlada nabadda sanadka aan guddoonsiinayno waxaan ku soo dhaweynayaa abwaanka inuu tiriyo tixda bismillaahi raxmaani raxiim aniga oon sii badinaynin oo tix yar oo gaaban soo sameeyey bal ila dhegeysta hoyalay 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 hoye allahe hoyalay hoyalay hoye nayru sadudo arladu waynabada bixine nugulkii harada guga neefku soo celine anna nudubta hoos iyo haddaan taabana warkiye gabadhyahay naruuratihiyo naqiya roobade nasabkii absamayatihiyo naadi xog badane nasiib waxaad u soo yeelatiyo nabadda koobkeeda nimcooy naga gudon farax waa soo abadulaaye nimcooy sareeda tihiyo suubi gaabadheede saxan saxada roobka tohon kulasan raacnaye sidiisay ma roobaad indhaha wuxu siyaadaye saddex baan ku dhaartay adaan saajinkaa dhigiye soomaalidoo idil haddaan sacad waada eego midna kuguma saweyn karo waad ka sidataay aad baan ugu faraxsanahay inaan haddaan jaaliyadda St. Cloud nahay nimcaan guddoonsiino nimco waad mahadsan tahay koobka waad qaadan kartaa waxaa kaloon maanta caawa aan rabnaa sorry dhammaantiin waan idin salaamay aad baan ugu faraxsanaa caawa inaan idinla joogo aad baan ugu mahad celinayaa jaaliyaddan isxilqaamtay sida quruxda badan maanta qadada igu samaysa haddana koobkan sharafta badan siisay ma haddaasna waxaan iskale ilaahay
idinkuna dhammaantiin waa idin mahad celinayaa meeshaas waxa ay gaarsiiyey maanta madaxweynahayga mudan ee cabdi iyo wasiirka aan aad u jeclahay walaalkay khadar dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan leeyahay nabadda ha jirtaa joogto waa mahadsantiin waa ka xumaaya macnaha waa ka hordhacay inay meesha kale waxaa kaloo dhihi lahayn haddii aan nahay jaaliyadda St. Cloud annagu waxaan nahay jaaliyad St. Cloud degan waxaanu diyaar u nahay inaanu mar walba ma awoodi karno dadka qiimaha badan leh ee nabadda u dadaalo inaanu dhammaan abaalmarin wada siino qof kastoo meeshan jooga wuxuu mudan yahay in abaalmarin laga siiyo waajibka uu gutay marka ma gaarsiin karno shakhsi waxaan garanay inaan waqti kastaba oo xaflad noocan ay dhacdo dad ka mid aanu ku sharafno haddana waxaan u yeedhi lahaa stageka inuu yimaado gudoomiye ku-xigeenka ururka Sadio Cabdifataax Xirsi Dool markaan fiirinay St. Cloud bulshada joogta waxay aad iyo aad uga heleen oo ay jeclaysteen dhalinyarada waqtigooda maalkooda iyo maskaxdooda u hurtay nabadda inay u istaagto oo jebisay gidaaro badan oo aad u adag inaanu macnaha abaalmarin u siino inay yihiin ururka ku guuleystay sanadkan 2007ka nabadda kililka marka 2012 sorry aad baan u faraxsanahay inaan macnaha xawaan marka hadalkayga haduu qaldamay iga raalaada marka waxaan dhihi lahayn inaan koobka isagoo ku hadlaya ururka dhalinyaradu way ka soo wada qayb gali karaan koobka macnaha inay qabsadaan dhammaan waa salaamintiin waxaan aad ugu mahad celinayaa jaaliyadda St. Cloud oo xil weyn iska saartay samaynta koobkan waxaan keligay Sadio Meehi waxaan jeclaan lahaa inuu ila gudoomo abwaanka qaaliga aan aad u jecel lahay Maxamed Xasan Bukhari iyo dhammaan Sadio waxaan jeclaan lahaa inay ila gudoomaan dhammaan ururka dhalinyarada Sadio ee halkan fadhida oo faraxsan koobka ay noo soo garteen jaaliyadda St. Cloud waad mahadsantihiin Sadio aad baan ugu mahad celinayaa jaaliyadda St. Cloud waad mahadsantihiin haddana waxaan dhihi lahaa inay laba kalmadood ka tiraahdo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee jaaliyadda St. Cloud Canab Maxamed Daahir midda kale waxaan idinku darayaa koobabkaan bixinay waxaan ku soo calaamadaynay magacyada dadka aan siinayno iyo labadii calan ee kii kililka iyo kii federaalkaba macnaha inay ku jiraan si ayna u noqon wax la iska tuuri karo oo mustaqbalka ay ku faanaan oo ay haystaan oo calaamadii macnaha nabadda matalaysay iyo horumarkii aan ka gaadhnay macnaha dowladda deegaankeena aan ku soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين رمضان كريم أيانا لهاي أنا وأكوها ضيا مقع الأوركا معاكم دي تالية وحان أول فرح سنة عوضة مرتي شرفت قيمها بدل يو حلفة الآن وروح بدل إلى سوء بابلي معاكم دي كما موسى الوزير كينا خضر وكم سلامين إنه طلبات يعني ربوا إن أنت كشيء وحواي سديو يو قولها مرتدى آبان أو مالعلنية سيدا أي قرطقوة سيدا مركز تأوغو محاكو دهاي نبدو أوغو تاغنيين آبان أوغو فرح سناهي وحاكلون هالكا كسلامة يا شعبك ديغان كصومالي دا إن إثيوبيا يو مدحوينها إن شاء الله عبد محمد دمانتين وين وضع السلام يا وحين الله رمضان كريم waad mahadsantihiin waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynaynaa oon ka codsanayaa jaaliyadda degan Minnesota
aadka u fiican khaasatan kuwa Minneapolis degan oo ah meesha aan ku soo hiranayna macnaha inay leaderska noo noqdaan inay iska ilaaliyaan khilaafaadka oo ay ku dadaalaan sida isu abaal marin lahaayeen waajibaadka mid nin walba oo qabtay qof walba uu amaanaya idin kamid ah isu ogolaada inaad limintiisa siisaan oo isu ogolaataan inaad isu hambaleysaan mar walba ayaan idinka codsan lahaa sida aanu anagu St. Cloud u jecelnahay inaanu is abaal marino ama kii kale wanaagsan baan u abaal marino waa mahadsantihiin